السلام عليكم ورحمة الله وبركاته fiidnimo wanaagsan saaxiibayaal warar yar oo goosgoos ah iyo filimka lagu magacaabo Kingdom adfasi boqolkiisa meesha uu ku xirmay ayaan rabaa si guud idinkugu dulmara saaxiibayaal idinkana ila socda muuqaalkana noo share gareeya asxaabtiinana la wadaaga saaxiibayaal haddaba waxaan ku bilaabanaynaa filimka lagu magacaabo Kingdom waxaa la soo gudbiyay saaxiibayaal businesska ama lacagaha lagu iibsado dhanka canjaladaha dhammaanba dibad iyo dal gudaha iyo dibaddaba sidaa darteed marka filimkan waxaa lagu iibiyay 52.50 koror waxay isku lacag yihiin filim 2023 la daawaday ee kushii lagu magacaabay jaceylka ahay asagana waxaa lagu iibiyay 52.50 koror filimkaasna flop ayuu noqday haddaba marka maxaa laga filan karaa ama macnaha filimkan hadda lacagahan lagu iibiyay 52.50 koror qaanadee ayuu ugu jiraa filimadiisii ugu dambeeyay 7 filim ugu dambeeyay markii lagu daro Kingdom 8daas filim qaanadee ayuu kaga jiraa haddaba filimka koowaad ee lacagaha ugu faraha badan lagu iibiyay dhanka canjaladaha waa filimka Liger 88 koror ayaa lagu iibiyay saaxiibayaal filimkaas Liger waa filimkii lagu siray hal sano iyo bar ka hor saaxiibayaal sidaa darteed filimkaasna disaster ayuu ka noqday sidoo kale filimka labaad ee lacagaha ugu faraha badan lagu iibsado waa filimka Kingdom 52.50 koror ayaa lagu iibsaday filimka saddexaad waa kushii asagana 2023 ayaa la daawaday 52.50 koror ayaa lagu iibsaday waa isku lacag filimka afaraad waa Family Star waxaa lagu iibsaday 43 koror ayaa lagu iibsaday filimka shanaad waa filimka lagu magacaabo saaxiibayaal dheer Cambridge filimka lagu magacaabo 34.60 koror ayaa lagu iibsaday filimka shanaad waa filimka World Famous lagu magacaabo 30.50 koror ayaa lagu iibsaday filimka lixaad waa filimka lagu magacaabo Nota 25.50 koror ayaa lagu iibsaday filimka sideedaadna waa filimka Taxi walaa 18 koror ayaa lagu iibsaday marka halkaas waa isla fahanay ayaan u maleynaa saaxiibayaal filimkan sheeka ahaan wuxuu ku saabsan yahay waxaa la joogaa xilligii gumeysiga Ingiriiska 1990 ayaa la joogaa saaxiibayaal xilliga Britishka sidoo kale ninka lagu magacaabo Sorry waa askari mayal adag madax faluuq qabo sidoo kale magaciisana waxaana lagu magacaabaa Sorry saaxiibayaal waana Vijay Fargandi wuxuu ka tirsan yahay ciidamada booliska sidaa darteed saaxiibayaal waxaa dhacayso in maalmaha kamida sargaalka ka sareeyo oo mission hall basaasnimo ah oo uga diro dhankaas iyo Sri Lanka saaxiibayaal haddaba ninkan odaga Sri Lanka markuu aado wuxuu la kulmaa walaalkiis Shifa ayuu la kulmaa oo lagu magacaabo Satyadev ayuu la kulmaa saaxiibayaal markuu la kulmo wuxuu ogaanaa walaalkiis Satyadev in Sri Lanka uu joogo gaangisar awood badan oo yahay dadka waxyaabaha tahriibaya iyo burcadda iyo dadka wax tahriibay inuu kamid yahay ayuu ogaanaa walaalkiis Satyadevna marka wuxuu ku jiraa xabsiga sidee marka ay ku wada kulmayaan ninkan wuxuu ku qasban yahay marka askari inuu la soo dagaalo banaanka rabsho ku soo galo kadibna xabsiga oo imaado sidii ayuu sameynaa xabsiga ayuu soo galaa Vijay Fargandi ninka lagu magacaabo Sorry markuu soo galana koox team oo walaalkiis uu hogaamiyo uu ka yahay ayuu garaaca kadibna labadooda ayaa feera iska tumay si aan goosgooska ku aragnay sidaa darteed marka labadooda xabsiga markay ku kulmaan halkaas saaxiibayaal waxaa loo daawan doonaa ayaa la leeyahay filimka labadooda maadaama wiilkan labadan walaale ay kala maqnaayeen muddo 18 sano ah ma dhici doontaa ayaa la leeyahay labadooda si wada jira inay xabsiga uga soo baxaan burcadaan dadka leynaysa ay la dagaalamaan kadibna hooygooda ama familkooda ay labadooda dib ugu soo laabtaan ma dhici doontaa ayaa filimka loo daawanaa saaxiibayaal haddaba director Gautam Tinaaru oo ah director cabqari ah saaxiibayaal sheekooyinka meeshan oo la yimid aad ayay u fara badan yihiin filimka waxaa ku fiicneed hal sheeko in lagu dhiso oo kaliya ama walaaltinimo oo walaalkiisa burcadda ku jira laga soo bixiyo in lagu dhiso ama fariinta basaaska oo kaliya filimka laga dhigo laakiin sheekadiyo isku dhex qasay ninka lagu magacaabo Gautam Tinaaru meesha oo ka qalda wax ay tahay ninkan markuu Sri Lanka oo soo aaday Vijay Fargandi walaalkiis ayuu la kulmaa maxaa loo soo diray ninka Vijay Fargandi waa basaas arrimo basaasa loo soo diray walaalkiis oo la kulmaa dhibaatada marka filimka culeyska hoos u dhaca meesha ku imaaday waa halkaas 3 angal ilaa 4 angal oo kala duwan waa filimka sidoo kale waxyaabo aan loo baahnayn ayaa filimka ku jiro sidaa darteed filimkan waxaa la siiyay 3 dig oo kaliya ayaa filimka la siiyay waa good movie waa one watch waa hal mar daawo kadibna iska soco filimkan muxuu dhaliilo ku leeyahay muxuuna ku fiican yahay
dhaliilaha filimkan uu leeyahay Vijay Franganti waxa ay tahay horta performance-ga uu la yimid waa blockbuster inaba caadi ma doorarka kala duwan oo matalaya Soori sidoo kale ninka lagu magacaabo saaxiibayaal Satya Dev asagana doorka uu qaadanayo waa iska normal door adag ma aha gabadha lagu magacaabo Fagayarsi Borsi maba loo baahnayba waa laga faa'iideystay waa joogitaankeeda quruxda badan marka muuqaalada ama sheekada la siiyay maba loo baahnayn ayaa leeyahay banaanka la isaga tuuro aaficneed sidoo kale filimkan haafka hore aad iyo aad ayuu u sareeya ayaa la leeyahay haafka hore ayaa 3 xidig ilaa 2 xidig iyo bar la sii karaa haafka labaad markii la isku soo laabto saacadaha ugu dambeeya filimkan ayuu gadaal ka soo kacaa saaxiibayaal sidaa darteed marka halka saac hore iyo halka saac dambe inta u dhaxayso 30 daqiiqo ilaa 40 daqiiqo u dhaxayso filimku waa 0 ayaa la leeyahay waa kala daadsan yahay sidaa darteed marka filimkan sidaas ayaa 3 xidig oo kaliya lagu siiyay